madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa la hadlay shacbiga Somaliland waxaana ugu horeyn madaxweynaha Somaliland baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ay dirirtu ku dhaxmartay deegaanka Fadhigaab oo ka tirsan degmada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaaga waxaana ugu baaqay inay nabad ay qaataan colaadna joojiyaan sidoo kale madaxweynuhu waxa uu ka hadlay qorshaha xukuumadda ee xanuunka COVID-19 isagoo tilmaamayna inay qaadeen tallaabooyin badan oo dhinaca taxadirka isla markaana xukuumad ahaan fureen account gaar oo ah xanuunkaasi kuna shubeen lacag dhan 3 milyan oo dollar isoo cid kasta oo hanti aqoon iyo fikir bahaysa ugu baaqay inay ka qayb qaataan gurmadka qaran ee lagu jira xanuunkaasi madaxweynuhu waxa sidoo kale ka hadlay arinta qaadka oo cabashadiisu soo noqnoqotay waxaanu cadeeyay in mushkiladda qaadku tahay mid xukuumadda Somaliland ku baraarugsan tahay balse aan lagu joojin karin laablakac iyo caadifada madaxweynaha oo arrimaha iyo arrimo kale ka hadlaya ayaa yiri bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah ilaahay waa mahad ina siiyay amni iyo barwaaqo iyo roob iyo aqli iyo diin iyo wanaag badan iyo dawladnimo ilaaha saamahado mahadnaqaynaa inuu ku shukrino inaguna wixeena wanaajinaa wanaagsan kolka saaka waxa ka dhacay dagaal uu ka dhacay magaalada la yiraahdo Fadhigaab aad iyo aad baan wax mahay ummaduna way ka naxday gobolkaas Sanaag Ceelaf Weyn gaar ahaan muddo dheer oo sanado badan ayaa arinteeda lagu jiray in la xalliyo si dawladeed iyo si diimeed iyo si dadnimo intaba waa loo galo waa lagu xalliyay muddo dheer iyo waqti badan iyo daal badan ayay Somaliland oo dhan u gashay in arinta xal waara laga gaaro waana la isla afgartay nasiib darro taasaa ka dhacdayna laba firay waa u ducaynana Ceelaf Weyn iyo jiidada ka degan in ilaahay qulubtooda soo jeediyo oo iyagu bay nabadu ka go'daaye ilaahay waafajiyo guud ahaan waa ugu ducaynana waxaan leeyahay dagaalka la joojiyo bishii Ramadaan waa inagu soo dhawday ilaahayna barwaaqo badan iyo roob iyo nimciina siiyay nabadna waa ina siiyay maanta col kale oo cudurina wayna hayaan ka baqayno adduunka dhan haya maanta waa maalintii la wada jiri lahaa la iskaashan lahaa maaha maalintii xabad isku bilaabi lahaa waxa garadka iyo waayeelka waxaan u soo jeedinayaa in arinta halka lagu joojiyo taa intaasaan ku dhaafayaa cudurkan maanta adduunka gelgelay COVID-19 ilaahay maad ka gadheedo wali waa sahlanahay dalkeena cudurka waa lagu arkay waa lagu hayaa kaysas dhowra ilaahumba aynu barayaan inuu naga badbaadiyo waayo waa xanuun aan dal xoog leh iyo dal dhaqaale leh iyo dal caafimaadkiisu wanaagsan yahay iyo ku aan lahayn iyo ku faqiira waa u siman oo wuu simay adduunkii oo dhan ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu naga nabadgeliyo oo arrintaasi sahlan ilaahay nooga dhigo safmar fudud oo inta ay tahay aan inagu dhaafin taasina waa baryada ilaahay dadka dalalka aynu idaacadda ka dhageysano ee Yurub leh ee Mareykan leh iyo inagu isku si ugu wada naalo isku dhaqan ma nihin isku dhaqaale ma nihin sideen bulshadeennu u dhaqantiyo toodu waa kala jaad inagu maanta ma oran karo dadka waynu xidhaynaa oo guryahan ku xidhaynaa ma oran karo waayo duruufteenu inooma ogola kolka hore bulshadeenu soo nooshahay waa dad wada isku xidhan qoys ahaan oo guri ku wada nool oo meel wax ku wada cuna oo kala maarmi karin iyagu waxa u noolaayeen qof ay dawladdu ka wakiil tahay ma oran karo meel walba waanu xidhaynaa waayo haddii aynu dadka xidhno marka hore dadkii xidhnaa guryo nin walba qof gaar loogu xidho qof walba qol gaara uma helanidii suurtagal maaha marka haddaynu xidhno waa dhibaato soo kordhay inagu waxaanu qaadanaynaa halka iyagu dhahdaan dad magaalooyinka hala xidho inagu waxaanu qaadanaynaa aynu dhibaatada yarayno dhibaatada aynu yarayno u jeedsanayna maadaama aan suurtagal noo ahayn
saynu u yaraynaa dhibaatada waxaanu ku yarayn karnaa innaga oo qaadana talada dhakhaatiirta intii suurtagalaba in la kala fogaado laba waxa kale laynoogu daray waa faraxal waaba sunne waa luqluqasho waa sunne 5 goor baa ilaahayna yidhi maalintii sankana biyaha ku shuba luqluqda faraxasha 5 kale aan ku darra ama 10 kale maxaa ku xiga waxa ku xiga dadka waayeelka ah iyo dadka cudurrada gaarka qaba ee u nugul iyagana aad loo sii daryeelo haddaad waalidkaa jecleedu meel joogo waxa wanaagsan inaydaan ku buuqin oon 10 qof oo suuqa soo tagay u tagin kii bukooda inaan loo wada tagin waxa la baalka wuxuu ku faafayaa haddii nin xanuunsanaya oo miiskan taabto oo ka daba taabato waad qaadaysaa dabcan waan isku xidhannaho kama maarmi karno basaskii waxaanu aanu yarayno waayahay haddii baskii kii ka soo baxay uu sii taabanayo oo kii sii fulayo uu taabanayo oo adna aad taabanayso tiradii aynu yaraynay wax badan may tarin marka maxaa loo baahan yahay haddaan baskii iyo meeshii la gelayay biyo iyo mid hor olin qofku wuxuu samayn karaa inuu gacantiisa ama waraaq qaato iskaga qabto ama uu mara qaato wuxuu taabanay iskaga taabto ma aha uun waxa Yurub laga isticmaalayo iyo say jiraan inuu raacnee inuu fikirkana laga rabaa afka haddaad ku xidhan maro boqolkiiba tiro xoog ka yareynaya wasku marada badisho haddaan golofis weyna gacanta waan duuban karaa markaan wax ku qabanayno siyaalo badan ayuu iska dhowri karaa masaajidadu waa masaajidada Ilaahay ciidan baa masaajid qoraha la isla taagaa la xidho laakiin xaramkii waa la xidho oo la ka maqnaada masaajidka nabiga la ka maqnaada oo muftigii qiblada aynu u tukanay ee aynu u xajireen u cimraysnaa wuxuu yiri dhibaato jirta awgeed taraawixda rabaan tahay marina masjidkii weynaa xaramka ahaa iyo kii rasuulka sallallahu alayhi wasallam waayo caafimaadka dadka wax la ilaaliyo ugu badan inaguna waxaan leenahay maadaama uu xanuunku inagu jiro oo aynu hubno urradii masaajidka ka mid yahay dadku guryahooda ka tukada masaajidka marka intaas oo qof isku timaado ee kii ka horeeyay ku sujuudo ee kii soo galay adla soo gasho ee ummadii dhar ku jiro de Ilaahay baa inoo fasaxay maaha wax aanu diinta ku gafeen inna faham weeyna ma aha waxaan leenahay culimada iyo dadka oo dhanba war caafimaadkeeni baa ku ege sida inoo roonay caafimaadka dadka oranay waliba gaarin markii la yareyn lahaa jamacay in la soo dhawaado oo waa in sidii loo camra ma markaynu boqol tartabo soo dhacaabaynu wax qabanayna inta aanay inagu dhicin baan leeyahay saa lagu nabadgeliyaa ka digtoonaano hadday dadku soo daataan dawo male meel uu ka dhigno male waxa la qofka u dhinta cudurkan xitaa lama aasi karo oo looma dhawaan karo oo lama taaban karo meel fog baad jiraadsa inta lagu xidho qalab dadka ilaaliya laga tukanay mara cado ka farado laga xidhay wixii dhakhtarku soo xidhaa waayo waxa la nabadgelinayaa dadka marka in waxa aanu isla fahmi weyno ma aha taana waxaa leeyahay culimadu qaybta u weyn ka qaateen saynu dadka u badbaadina cibaadada Ilaahay waa la wada golay muslim baynu wada nahay masaajidada iyo cibaadada iyo shacairta waynu ogolahay soo cidina farin laakiin wixii dadka badbaadinayaan aan ku daro jamaca la isku masaajidka dhow dhakhaatiirta way nooga digay wax walbana waxa qofkii yaqaan hal weydiyo haday laba qof dhaxal isku qabsato culimada loola taga haday dhibaato caafimaad ee dhakhtarada weydiinayna dawladdu taama amraysa anigu ma amraayo waa dhakhaatiirta caafimaadkoodii taana waxaan leeyahay hal la kala durko intee suurtagala dhibaatada aynu yareyno aynu isdhageysano hadhowta meel aynu ka ururday aynan gaarin ilaahayna waynu barno inuu dulqaado dhibaatada labaad waa qaadku waa mashkalad inoo taala isagoo xanuun kale imanba dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan oo bulshadani burburiyay dhaqaalaheenu baabiyay dhaqankii inaga xumeeyay ka cuna iyo ka iibiya iyo nin wali waa qiraya waana ilaa iyo intuu jirayba waa la qiraya dhibaatadiisa ninkii qaadka cuna intaanu fayraskan ba iman caafimaad male qoysku gudumaya carruurtu way ku lumaysaa mujtamaca inta xashiishku keenay magaalada laga guri karaayo waa qaadka
sanadkii malaayiin doolar baa inagaga baxdo oon waxba inoo soo wadaaran oo dhaqaalihiina uu ridaya intaasoo dhan haddana waa la waaniyey culimmadu waa waanisay caafimaadku waa waaniyey dowlad ahaan waa la waaniyey waa masiibo ina dhex taalla sidaynu qaadkii ka yaalla baa timid haddaynu dhaha la joojiyo weligiiba qaadka 3 goor la isku day la joojiyo 3diiba uu ka xoog waday dowladda tii ingiriisku baday dhigi jirtay waa la qaban kari waayey waa shaydaani tii dictatorkiisa aad barre looga awood lahaa ila baabisay qaadka dowladdu iyo dadku ilaa dadkan iibiya ee mulkiyaasha aynu wax isla gaarna see laga yeela haddaynu isku qaadno xadkeena geed ma leh bad ma leh buur ma leh meel quri ma xanibayso intaa haddii aynaa nimanka soo waaridaya ma go-aan ka wada gaarin la isku ogyahay oo barbaa diyaar waa inay joojiyaan barbaanu ahayn waanu wada xalila kan kale imika ogol inuu joojiyo isna uu bilaa beris haddii la bilaabo ciidan eryada iyo hala qabto iyo halka ka soo dhacay waa dhibaato waxaanu ku jiraa in nimanka baalkaa soo waarida meel isla dhigo isagoo kolka horeba intaasoo dhibaato lahaa maantana inta gacmoodu soo maro ta laga soo gooyo ka kala sii taabta jawaanka lagu xiro waa dhibaatada weyn oo taalo weyn marka waxaanu eegnaa sidee ugu dhib yar ee dhibaato kale inuu galeen loo joojiyo weligiiba haddaynu helo in la joojiyo iyo imika sidee dhibaatada loo yaraa insha allahu ilaa beritana arrintaa nimankii baalkaa waa la isku noqonayaa meel wacan bay wax soo dhigeen qaarkood waa leedayihiin waxaan ilaahay ka rajaynaya inaanu isla go-aan qaadano aanay noo keenin dhibaatada aynu ku weerarino soo geliyo